بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaan ka hadlayaa anigu horta waxaan ahay arday baan ahay arday qurbaha ku koray baan ahay aabahay ilaahu naxariistee wuxuu ahaa waxaad dhihi kartaan jiilkii ama waxaad dhihi kartaan dadkii dowladnimada kusoo indhaqaaday baadiyo ka soo qaxay miina ku qaraxday baadiyo ka soo qaxay muqdisho imaaday waana magaalada kaliya waqtiga Soomaaliya u dhisneed muqdisho imaaday halkaas uu ka bilaabay 40yadii 50yadii inuu yani mar galin waiter ahaan ka shaqeeyo makhaayadaha galina ma taqaanaa dugsi quraan iyo wax barbarto galina dawaagaas ma taqaanaa wuxuu qaban karo iyo wuxuu sameyn karo markaas uu gursaday oo koray waati markaas wadanka burbura marka wadanka markuu burburay Sacuudigu imaaday halkaas anaguna ku nooleen ku dhalanay dadka oo carabaha ku koray kaliyana ila dareemi kara waxa aanu dareensanahay xagga wadanimada carabtu si kasta ugu noolaatid ugu dhalatid ugu kortid malihid maxay tahay sharaf iyo kuma qabaan abaal iyo inaad tahay si wadamada gaalada yani wax kasta waxba faa'iido leeyihiin wax kasta faa'iido leeyihiin wax kasta dhib leeyihiin gaaladuna faa'iido leeyihiin xagga inay mararka ka yani nidaam ahaan system ahaan ku dareensiyaan inaad tahay qof muwaadina laakiin si kastaba xaggooda madow baa ka tahay ama ajaanib baa ka tahay si kastaba ku arkaan inuu waxa tahay wadan dusha ka haystaan isticmaarsistaan xataa yani si aan indirect xataa ahaataba waqtigan baan ka hadlayaa laakiin carabaha waa wadan islaam waa wadan muslim dhifa ma ahane waxa weeye mar kastaba waxaad ku dareensiinayaan inaad tahay ajaanib inaadan si kastaba mataqaan u dhaxkeli karin wax rabtaba sidaad ugu labisto anigu laftirkayga 12 sano dugsigoodan ku jiray iskoolkoodan ka wadaa thanawiyada laga soo ibtidaaiya laga soo bilaabo bilowga ilaa thanawiyada khamiis baan ku taagnaa imaamad markaan ka soo noqdana dugsi quraan masaajidka yani 12 sano imaamad thoob macwiis xataa ma aqoon bariyaha bartay markaad jaamacadda waxbarashada caadi ka soo Sacuudi waa ka tagay marka bariyaha bartay arrintii laga hadlo inaan macwiis iyo khamiis markaas ugu dambeysay Sacuudiyan ka soo baxay marka waxaan ka wadaa ninkaas dhaqankoodan aqaana labiskoodan aqaana qabiiladoodan aqaana hadalkoodan aqaana maanta Sacuudi hadaan arko haduu iska dhaafo san yani in ajaanib ahay wiliga Allah iga dareemayo inaan qariib ku ahay soo tahay xaggooda waxaan ka ahay maanta ninka wadanka shala soo galay iyo maanta ninka wadanka soo galay iyo ay aniga isku la mid baan kama duwanin marka maxaa aniga hadalkan aniga keenaya kanaalka yar baan sameystay qof kasta waxa uu wadankiisa u qaban karo inuu u qabto anigu arday baan ahay hadeer fikradaha aan hayo iyo waxa aan hayo waxa laga yaabaa dad badan inay ku waafaqeen laakiin waxa weeye waxyaalaha aan aaminsanahay inaan wadankeeni anaga u qabsano kaliya baan rabaa in idin soo gudbiyo iyo aaraada aan ka qabo hadurunta laga hadlana siyaasadda Soomaali si guud oo kore ma ahane anigu kuma dhex jiro waxna kama garanayo runtii la waaqic marka noocan ma idin laftirkiina aaraadiina iyo waxa ka aaminsantiin siyaasadda Soomaali in idinka barto iyo caawisaan ana afkaarta aan hayo inaad ii sheegtaan ana waxyaalo badan baan akhriyay xagga diinta xagga siyaasadda waxyaalo badan baan ka akhriyay alxamdulillah maadaama aan Sacuudi ku soo korayna diinteeda alxamdulillah yani in ugu filan waan aqaana in kastoon aan jeclahay insha Allah marka waxbarashadeeda guud hadda dhameeyo inaan diinta qaybta diinta galo biidnillah taala shariicada marka maxaa ani waxaan hadal ay igu furay oo iga keenaya waxa iga keenaya anaga hadii
qofka waa inuu huwiyad leeyahay. Huwiyad waxaan ka wadaa muxuu yahay adiga asalkaaga maxay tahay. maadaama qofka wuxuu uu yahay uu aaminsan yahay uu raali ku yahay wax kasta adduunka wax u istaagaa male wax kasta uu qabsanaya mustaqbalka wax kasta yani horumari adduun qofka wuxuu yahay inuu ka faano ma ahan waxay ahaataba raali ku ahow waxyaalaha waxay ka mid tahay radaa'u bilqadari khayrihi wa sharrihi qofka inuu raali ku yahay qadarta waxay ahaataba khayr iyo sharba bima anna ilaahay uu ka dhigay asaas ku dhalatay wa ina aqbashi you have accepted wa ina aqbashi Soomaali baa tahay raali ku ahow fahamtay qabiilkaas baa tahay raali ku ahow wax ka galay dadka kale male muhiimadda adduunka hadii runta loo fiiriyo hadda waqtiga zamanka lagu jiro adduunku waxa weeye maxaa baratay weeye maxaa gaartay maxaa nafsadaada u qabatay weeye cid ku dhahaysa male maxay tahay yaa tahay iyo qabiilka tahay iyo waxad maadaama aad tahay anoo kaniisada day soo baxay raali kama ahay waan qaninka videoga sameeyay wuxuu u soo saaray anigu waxaan u soo galay kaliya background yani inaad gadaal ka fiirsataan marka waxaan ka wadaa maadaama qofka fikradii baa iga dhumay raali hada maadaama qofka mataqaana uu wax bartay uu isaga nafsadiisa iyo noloshiisa meel ka soo saari karo oo nafsadiisa number 1 markaas uu ku bilaabayo familigiisa markaas uu ku bilaabayo wadankiisa wuxuu u qaban karo markaas buu mataqaana dadku markaas baa waxa tahay qof mataqaana yani si kasta iyo waxa tahay dadku si kugu cayraan wax ma ka tiri doonto marka anigu hadeer waxa waaye dhowr goor waxaan ka hadli doonaa mashaakil muayana waxyaalo oo dib waxyaalo dhaqamooyin xun anagu Soomaali hadaan nahay dhaqamooyin fiican baan leenahay nooc ma anigu aad iyo aad aan u jeclahay oo ku sharaf noo ah Soomaali caamatan hadaan nahay aan kaga sareeno ummadaha kale ya maxaa kamida isku xirnaanshada maanta yani Soomaali family ahaan si isku caawiyaan si isku xiran yihiin runtii hadaan ka hadlo waxa noogu soo dhow baan arkay Hindida laakiin sida kale subhanallah islaamnimo iyo rixnimo Soomaalida waa dad ma sha Allah tabarakallah dad reerahooda iyo familiyashooda jecel runtii hadii laga hadlo wana dad is jecel even saaso tahay in Soomaali aqoonin mararka qaarkood yani si ku tusan yani mararka qaar laga ma yaabo inuu nin Soomaaliya mataqaana si direct la kula imaado ku dhaho waa ku jeclahay walaalkay baa tahay yani waxaan ka wada direct ugu dambeeyay laakiin waxa laga yaabaa ficilkiisa inaa ka aragtid yani Soomaali hadalkiisa kama arkaysid laakiin ficil baad ka arkaysaa kaas baan ugu muhiimsan ficilkan ugu muhiimsan kelimadu tayiba way fiican tahay laakiin ficilkii baad arkaysaa waxa arkaysaa nin Yurub jooga oo xamaalanaya oo caruurtiis u korsanaya ya nin oo habriirtiis dhashay oo wax baranaya oo waxa laga yaabaa wiligiis alihiis oo arkin hadii isla hadleena 2-3 mar isla hadleen waa laga yaabaa inuu lacag u soo diro oo wax barashada ku caawiyo waa wax aad dahab u ah oo qiimo badan oo aad u fiican waa dhaqan aad u fiican dhaqamadaas camal baan ka wadaa waxyaalaha kamida kale yani dhaqamooyin kalena baajiro aad u si fiican marka taas mush laazim inaan ka hadlo khasab ma aha waa wax fiican in la si xoojiyo kaliya ma ahan waxyaalaha kale aan ka hadlayno waxa kamid ah rab inaan ka hadlo khaasatan dhaqamooyinka qaarkood hadeer wadankeena soo galay
oo lagu bilaabay markan kelmadda aan leeyahay waan lagu bilaabay waan lagu bilaabay yani idinku dadku badana ma dareensana dagaal baa lagu socdaa Soomaali kaliya kuma socdo shacab kasto ku socda adduunka oo huwiyad leh anaguna dan Soomaalina huwiyad baan leenahay fahamtid dagaal baa lagu socdaa dagaal waliba cajiiba dagaalkaasna waa dagaal in la bedelo qofka in laga saaro Soomaalinimadiisa maxaa adiga maanta Soomaali ka dhigaya in laga saaro in laga bedelo dagaalkaas number 2 wuxuu ku bilaabmayna haweenka way isweydiinaysaa way haweenka ugu bilaabmay لأنه إقرأ لهذا مرة قرب حلقة يابا إن كلمة عربة أد استعماله لكن أسكت ديا إن الصومالي قات كستو ما أنا عرب بان هاي عرب بان كوكري عرب هاي بان هاي وحنا كوضع عرب بان رجولي قال لي عرب بان كجري لكن أنا وكفر حصنا هاي إن الصومالي هاي الرجال نواكو أخي الحمد لله يعني آدي بقى وفرح حصنا هاي وحنا كوضع gabdhaha iyo haweenka dagaalku muxuu ugu bilaabmay iyagu لانه wax la dhaho carabi labinatul mujtamac yani waxay ka wadaan guri markii la dhisaayo soo mataqana bulkeeti lambar 1 lambar 2 lambar 3 lambar 4 kullu ilaan door bulkeeti ba isku keenaysa badan boqolaal guri ba ku dhismaya soo ma ahan bulkeetiga haduu nooc quality xun yahay nooc xun haduu yahay oo fiicneen oo hore ka burburaya gurigaas aakhirka oo burburaya hawo uma adkeysanayo dhul galiir uma adkeysanayo jug uma adkeysanayo oo burburaya laakiin haddaad guri marka dhisaysid ku bilaawdid bulkeeti fiican oo adag ya gurigaas yani waqti badan buu joogayaa wax fiicanna waa lagu qabsan karaa macnaha waxaan ka soo wadaa haweenku waa asaaska bulshada waay li'anno iyalka dhalan doona jiilka dhalan doona oo Soomaali wadanka wax wadamada wax u qab wadankiisa wax u qabsan doona iyaga dhalaya iyagana korinaya iyagana rabeynaya iyagay ka soo baxaya عرفت واحد هذا وراء كل رجل عظيم امرأة أنا واحد أدو في صدينين كاست عجيبة هويني عجيبة كتنبيسة وأنا واحد أنا أدو في صدي حاجة تاريخ مركان أركي إني منك أدونك واحد ساق بصدي وحي أهاضم بسبورتس منها أهاض ميليتري منها أهاض رجل الدين من دينها أهاض واحد كاستن دائما يعني لخبص يعني يرفق بها آدم بقى نبينا حبيبكيني عليه الصلاة والسلام خديجة نمبر 2 أسبابته أكون نجاح الدعوة وحياة خديجة مرقصص اقرأ وسودغي عليه الصلاة والسلام صغر نحسن ويمد نيد أدجسي ترى إلهي سبحانه وتعالى كم أمنيه هنا عجيبة بعطاي رحمك وعاوسة فقيرك وعاوسة قفك مسكينك وعاوسة سبحان الله بيتري وحاني ووحو أغاندونا وحو يهي وانا وح خير سبحان الله كلمة دي بابا صاحبي ايه وحو كما يسود فيني مركا وحان كوضا هوينيغو ولمبركو وقفك الدقالك لكو بلاوي مركا وحان كوضا وحا هذا كان ايجا كينايا او صائدي ليهي وحيالا بدن بان هاد فيسبوك يو Instagram iyo Twitter la xiriiraya dhaqamooyin xushmad la'aan ah oo laga naxo baan ku arkay hadii runta laga hadlo cidna ma yaraysato ma fahamtay cidna ma yar dhalinyaradu wiilashuna ma yaraystaan haweeneyga gabdhuhuna ma yaraystaan taas laga ma hadlo taas mawduucinu ma ahan laakiin yaa adag oo khatar adag وحاوي هويني واي لأنه صار إذن شيء وأساس المهي ودنك لسي لها مستقبلك كوري لها قفتك إيمانا يامين لغموين بضن
يعني waxaa kamid ah marka idin lahaa Soomaaliya dad anaga lahay dhaqan baan leenahay waxaa kamid ah dhaqanka xushmada in aadaabta la ilaaliyo xaq waxyaalo muayana waxyaalaha qaarkood inaan laga hadlin waxyaalahaas waxaan ka soo wadaa for example يعني sida in laga hadlin يعني كوا soo qaad in laga hadlin mowduuca sida waxaan ka wadaa in laga hadlin isu taga ninka inaagta waxay ka tahay Soomaalideena internetka iyo facebooki waxa dhex wareegaya gabdho waxaas ay u tahay nooc macaadi inuu ringaas raali kama ihi wuxuu sameeyay Soomaaliya iyo wadankeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala aakhira u haysta معناها ساعدين شيء أروح سياسة درالي معها كم سومالي كم دحجرو لكن سجود يعني كأنو شقية إذا ما هي عدوية هي قبيلة فلان عدوية هي كلية وحا مهمة دي إذا أودن كم حقوقت فأنا قياسة فهمت إقرأ على هذا الموضوع يعني أصلا نقضه مركا وحكو أركي إيغو رقمايا حتى هي hadalladaas ku hadlaaya oo xushmadnaanta oo ceebta ah oo laga naxo ka tahay inay raadinayaan wax la dhaho famous ka wadaan inay soo caanbaxaan inay ku soo caanbaxaan marka wax aad iyo aad mataqana looga naxo hadalkaan ugu dheereenin waa ka sii hadli doonaa hadda waa muqaddimo anigu hadeer kanaalkaygan mataqana idin sheegayo waxyaalaha aan ka hadli doono Soomaali kaliya ma ahane hatta siyaasadda adduunka guud dhanka kale waa ka sii hadli doonaa iyo adduunka sida loo kala wado waxa anigu yani ka akhriyay iyo ra'yigeyga meeshu waxa way anigu ra'yi kaliya weeye idinkuna markaas tacliiq meesha hoos comment-ka waxa idinku ninkii ugu waafaqsan waafaq ninka kalena ahlan wa sahlan وشيكيسانينا وذا حظينا أهلا وسهلا فيكم واكاس السلام عليكم هدانا وحقا لهينا وشيطانك هدا وحصح لهينا وحق إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا